haddana soo gaaray ayaa sheegaya in gabi ahaanba la xiray xawaaladihii ka shaqayn jiray magaalada Nairobi gaar ahaan Islii. ilaa ay hadda ma cadda sababta keentay in la xiro xawaaladaha Soomaalida. maraasaa u fogeen ayaa wargeyska Hiigi Sasa wuxuu soo qoray in la joojiyay ergey Soomaaliyeed oo u socotay dhanka Soomaaliya ayadoo markaa lagu qabtay gadiga diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport. ilaa ay hadda ma cadda sababta loo xiray dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha ee Soomaalida ku nool Kenya. inkastoo wadanku Kenya oo hadda ka socdo program loo yaqaan Huduma ama Registration tirkoob qaabeed dadku iyo dhaqaalahooda lagu fiirinayo. wixii war oo dheeraada ama soo gaaro waa nala socon doontaan. intaan kulmi doonana waxaan rajeynaynaa sidaa iyo